Hey, nabadii naxariis korkiina hadda qofkiina la hadlayo waa Saadiq wadani again. Maanta waxaan rabnaa inaan uga hadalno waxa loo yaqaano sida alaab aad uga keensan lahayd China, aad uga iibin lahayd meesha loo yaqaano Amazon, iyo aad weliba uga iibin lahayd eBay, Shopify, Etsy, meel walba oo alaab lagu iibiyo. Especially wax maalmahan xooga alaabaha looga iibsadaa waa TikTok asna sidaad uga iibin lahayd meesha loo yaqaano TikTok. Okay? So aan usoo noqdo marka ugu horeysa waxaan rabnaa alaabtan iyada ah inaan ka hadalno. Wax yar aan dib u noqono alaabtan iyada ah sidaan annaga marka hore ku baarnay. Okay, sidaan marka hore ku helnay. Alaabtan iyada way cusub tahay, qofkan waxa uu iibiyaa $8.46 lacag badan kaagama baxayso. Waxa uu iibinayaa 2 pieces. Si aad arrinkan iyada u fududeyso waa easy, waxaad tagaysaa meesha loo yaqaano Alibaba. Automatically waxaa arkaysaa alaabtii iyadoo xaggan taalla oo 1 pieces ah, 2 in 1 1 piece. Laakiin ninkan waxa uu iibinayaa laba xabo iswato, iyo waxa uu iibinayaa ayagoo laba xabo ah, iyo waxa uu siinayaa waxa loo yaqaano $8.49. Okay, so ninkan waa companygan Fuput FPP store la yiraahdo. Alaabtan wuxuu ka dhigay branded, magaca alaabta kuma soo qorin, laakiin waxa uu sameeyay waxa loo yaqaano alaabtii halka xabo la soo iibinayay ayaa waxa uu ka dhigay laba xabo. So that's the waxa loo yaqaano branding. Alaabtaada waxaad ka dhigaysaa wax suuqa ka duwan, marka automatically qofka hore kama heli karo. Sida xagga ku xusan Alibaba ku jirna waxaa ka arkaysaa alaabtan markaad iibsanayso 100 pieces ilaa 600 in lagaa iibinayo 0.43. Okay, waa 50 cent wax ka yar. Adduunka meel alla meesha ka joogto you can buy Alibaba, waa la socotaan isleeyahay. 0.53 cents. Qofkan waa aragnaa inuu big company yahay maadaama pricekiisu uu kala duwan yahay. Si aad ku ogaato Alibaba nafteeda la isku galaa, si aad ku ogaato Alibaba waxa waaye waa inaad la socotaa sida ay dadka kale yihiin. Waxaad ku garan kartaa quantity-ga ay bixinayaan iyo inta iibin. Hadduu ku yiraahdo 20 xabo, 4 xabo, 50 xabo, waa qof sida Shopify Alibaba dhexdeeda uga shaqeeya raba inuu lacag ka sameeyo. Waa hagaag. Waxaan ku noqonaynaa, waxaan tegaynaa wax ay kala leeyihiin laba nooc sida xagga ku xusan. nooc loo yaqaano Silver A iyo Silver P. Okay, Silver A iyo Silver P. Color yani shining ah iyo color aan shining ahayn. Yaan lagugu qadmin sawirka. A iyo P dadka they don't know dadka iibsanay. So that was another strategy oo ganacsi lagu sameeyo. You can tell company-gan waxaad dhihi kartaa ii soo dir, ii sheeg waxa uu gudo ama alaabtaan sawiradooda oo PDF aan ahayn oo caadi ah. Waagaag. Haddii aan ku darno waxa loo yaqaano qofkan waxa uu leeyahay alaabtan ma free shipping ama maya, markaan dhaho okay add to the cart or start ordering waxa uu noqon doonaa alaabtan midkiiba waxa ay tagaysaa waxa loo yaqaan let me add it. Aan dhaho inta aan rabaa aan ka tijaabiyo. Waxaan leeyahay silver egg waxaan uga baahanahay 50 pieces. Let me write 50 pieces. No, let's say 100 pieces. Maadaama 100 meesha ugu qoran tahay 100 pieces. Kana waxaan leeyahay another 100. So price-ka meeshan waxay imaanaysaa waxa ay tahay subtotal unit piece waxa uu tagayaa $50. Okay, maadaama alaabta ay tahay 86, shipping-ku uu ku leeyahay 213. So haddii aad ka mid tahay dadka annaga aan ii sheeg nala shaqeeya oo aan dadka aan inta badan aan la shaqeyno, haddii aad ka mid tahay waxaan kuu save gareyn doonaa. Alaabtan waxay kugu imaanaysaa waxa loo yaqaano 80 cent to 70 cent. Alibaba sidaan la socono alaabta price-ku wax yar kaaga dhimay, shipping-ka xoogaa lacag badan lagaa qaaday. So 200 pieces alaabtan ah it not possible in lagaa qaado waxa loo yaqaano 213. Like however alaabta marka ay ku tahay waxa loo yaqaano tijaabo ama sample, it's okay, you can buy it and go from there. So alaabtan waxay kugu imaanaysaa saxa ka aragtaan $50 per piece. Okay, $50 per piece. Xaggan waxaa la iibinayaa $8.46 piece. Markaas ku dhufto waa $3. Ninkan gurigiis waxa uu la aadayaa piece halkii xabo waxa uu la tegayaa net revenue $6.20. Marka laga jaro $3 gurigan qofkan wuxuu la tegayaa $320. bishii imishaa la iibiyaa $4,770 markaa ku dhufato $3. xisaabta idinka igaga fiican, idinka warsugi, laakiin aan ka xisaabo calculatorkayga 4,770 marka lagu dhufto $3.20. ninkan guriga wuxuu la aadaa bishii $15,264. Okay, marka waxa dhan laga jara waa. So that's how it shows you yani strategically sida Amazon lacag looga sameeyo.
dhinaca kale aan u baxno alaabtan ma drop shipping lagu sameeyaa of course waa lagu sameeyaa drop shipping aan tijaabino xagga kan aan dhahno alaabtan soo highlight aan yiraahno xaggan aan soo qabano aan xaggan keenno aan dhahno let's go markaan raadino Google search Google is your friend mar walbaan ka hadlaa Google waa saaxiibkaada koowaad haddii aad joogto US banaankiisa fadlan isticmaal VPN ama lahdaasaan ka hadlaynay so wahagaag hadda waxaan aragnaa companigan Timo la dhahay inuu iibinayo $4.97 waa company yani both Chinese ah Tapu waa loo yaqaana China xaggan wuxuu ka yahay Timo xaggan waxa AliExpress is selling at $3.40 so $3.40 laba xabo wuxuu ka iibinayaa $6 so is alaabtan maadaama ay cusub tahay everybody waxa uu isku dayaa inuu iibiyo oo lacag yar ka siiyo so now I see ninka la dhahay Timo he's selling $1.25 asna waa ku dhufan kartaa let's go from there and techno maadaama annaga aan nahay dadka ku xeel baxay waxa loo yaqaan ay tusoo itaabsi we always want to show dadka inaan tusino waxa xaqiiqda ah meesha laga keenayo meesha hadduu qofka lacag ka sameynayo okay companigan Timo la dikoor waa idin kala hadlay qof alla qofkii u baahan linkiga hoostiisa oo kaga dhufsan kara so he's telling me companigan right now haddaan u baahanahay sample inaan ka soo qaato which is very good waa inaan inta ka aragno inaan $1.25 meeshaan iyada ah aan uga soo heli karno is exactly the picture baa lagu leeyahay ad fadaan dhaho waxaa laga yaabaa inuu ku daro another 50 cents camal oo kale shipping ah you know and so markaas kadib waxay noqonaysaa price-kan exactly waa wax ka hadlaysan mala brother this is where you make money waxaa ku qaran kartaa companigan inuu yahay company asna China ah laakiin alaabtan waa $1.25 sida aan sheegaynin laba xabada ka soo qaado hadda aad degantaa US iyo North America hadda laba xabo ka soo qaado hadda ka soo qaadato 100 xabo aad tijaabiso still adoo aan Alibaba ka dalban again you can profit this company for that reason anaga we added our carts because price aad iyo aad u fiican uu eegyahay already we added our carts waxaan leenahay waxaan fiirinaa reviewga alaabtan laga bixiyay gudahan tagayna haddii la iibsaday hadda aan hore loo iibsanin so alaabtan it looks like inay new tahay waxaan raadinaynaa details here we go iyadoo la jarjarayo la kala gogoynayo one pieces waxaan rabnaa inaan reality dad baa ka iibsada automatically neat idea it was amazing okay exactly as a picture neat idea this is no more idea this is more idea so those people are America jooga inta badan oo ka hadlaya reviewga dadku waa inaa fiirisaa reviewgooda see all review so dadkan waxay joogaan Mareykanka they talk about it dad alaabaha ka hadlaya alaabtii oo sideedana waa tan oo lasoo sawir bac ku jirto okay so this is how you evaluate hadda US degan tahay this is how you make money okay you see dad badan ka iibsada and alaabtan is brand new April 29 bish laba bilood ka hor waa alaabtan waa ka baxaynaa Timo waxaan ku noqonaynaa meeshii loo yaqaano meeshaan ka nimid marka hore aan ku noqonaynaa all right so now waxaan rabnaa inaan soo bixino shopyo fara badan oo alaabahanka ayagana ka faa'iideysanahay I know dadka intooda badan Shopify ay jecel yihiin but I want to show Shopify so wahagaag AliExpress waa aragnay he's selling a $6 laba xabo faa'iidadiisu aad bay u yartaa markaa drop shipping ku samayso inkastoo dadka ay dollar iyo wax la jira ay raadiyaan waxaan arkaynaa eBay is selling okay waxaan arkaynaa AliExpress is keep coming back dad badanaa kala duwanaa kala fara badan you know maadaama home and goodies kitchen and home ka aad u socdaan stainless okay targetka uu iibinaya $9.99 company target xagga jooga eBay waa uu iibinaya oh this is the easy bargain this is waxa loo yaqaano Shopify okay you can tell you know Shopify lacag uu bixinaya weli marka hadda ku dhufto one click is paying the money miskiinkan so gudahan u galeena waa eegayna waxa uu meeshan ku iibinaya isna wagaag waxaan aragnaa inuu ii sheeg $25 iibinaya 2-in-1 stainless timeka uu kuu soo dirayana wuxuu ka soo ship karaynaya AliExpress I know exactly sababtoo ah all Shopify they just drop ship and waan arkaynaa 2-in-1 hal xabo $25 rabaa inuu iibiyo ninkan isna aware suuq lama socdo you know wax ka jira so that's why Shopify is just stuck Shopify inta badan haddaad strategy fiican oo habboon aadan aqoon way ku dhamaatay so waa ka baxay xagga kan ninkan faa'iido ima lahan waxaan tegaynaa bartii loo yaqaano eBay again eBay waxaan ku arkaynaa ninkan inuu iibay 19 pieces $4.49 3 pack buu yiri ninkan waa nin xanaaqay aan gudaha u galnaasna
you see maalin walba haddaa ganacsigan ku jirtid faa'iidadaada waxay noqon doontaa mid wax ku oola sababtoo ah dadka intooda badan waxa ay raadiyaan yani $2 $3 oo consistency oo hore wax u socda ah okay $2 $3 consistent hadii hore maalin walba laga iibsado it's very waa arin aad u fiican so ninkan asiga waa ka soo ship garanaya AliExpress according to what we see here and May 8 today month 23 way June 1st that means 14 days oo ninkan iibsaday 14 days kule alaabtan ku soo ship garanaya marka waxaan rabnaa conclusion inaan ku bilaawno ma u baahan tahay alaab inaad China ka keento ma u baahan tahay in aad aad drop shipping samayso fadlan ha mogaanin wadani ana group asxaabteena fariin noo dhaafa TikTok-geena ama ama directly come to course-geena ku saabsan drop shipping-ka iyo Amazon sida lacag looga sameeyo waqtiga isku jarin adiga waqtiga jar waxa laga yaabaa dadkeena intooda badan maxaan qabanay 2024kii markii aan hadda 2024kii uu soo bilaabanayo January maanta waxa la marayaa May wax ma iska ka bedeleen oo meeshaada wali joogtaa xisaabtaas aday ku taqaan bal dib aan u eego haddana mar laba TikTok what is TikTok is doing you can see 36.6 trending product again aad buu socotaa okay you that 36.6 this product is holding it marka aragtid trending product aad u socoto waxay ku tusinaysaa dadkan dukaamada meesha ku leh they either doing a drop shipping from elsewhere ama drop shipping AliExpress ama waxay sameynayaan alaabta inay ayaga soo gateen ayay ku iibinayaan meesha loo yaqaano TikTok and TikTok nowadays everybody waxba ka iibsadaa waa soo iibin kartaa $3 TikTok you can sell it $14 laba xab iswato and you profit meeshaas waxay la tagaysaa $10 ama $9 wax la halmaala that's how you make you see this one 11.9 view man 11.9 waxaan rabnaa ii sheeg marka hadaad u baahan tahay inaad TikTok sida wax loogu iibiyo in drop shipping sida loo sameeyo in Amazon sida wax loogu iibiyo in eBay sida wax loogu iibsho ama how to make money maskaxda bini'aadanku waa inay aamintaa sida lacag uu qofka 2024 ku sameyn lahaa haddii aad tiraahdo maskaxda waxaan rabaa inaan sameeyo automatically you can do hadaad u baahan tahay saacidaad fadlan saa hore u sheegnay waxaad tagtaa www.wadanskillshub.com waxaad ka faa'iidaysaa waxyaabo fara badan oo annaga xaggan aan kusoo koobi karin sidaa tusaalaha idinka muuqda waxaan tusaynaa from A to Z Alibaba Amazon to eBay to Shopify and again to TikTok how to make money it's an easy method haddii ay maskaxdaada u furan tahay waa saadaq wadani asxaabtiisu idin hey intuu xoogga shaqayn lahaa aqligaa shaqeeya maalinta idin wacnaata